بسم الله الرحمن الرحيم. دمان أمدا الصومالية iyo أمدا مسلمة رئيس مالنا بوسلامية. waxaa magacay weeyaan Saciid Sheekh Ali Saciid waxaa dhabarkayga ah masaajidkii oo aabahay asaasay ee uu dhulkiisana lahaa Sheekh Ali Saciid oo imkana dhinaca jeedka ku aasan masaajidkan waa masaajid ilaa iyo soo dhisnaa dhowr iyo kontonkii lixdameeyadii soo dhisnaa masaajidkan markii uu sanadku 2017kii ayaan imi anigu kadibna masaajidka aniga ayaa fikradda in dib loo dhiso lahaa guddi waxaa jirta magaalada deegaanka ah oo anigu aan u tegey oo aan ku idhi masaajidka ma nala dhisaysaan oo markaad dhistaan inta qaaraan ka warurisaan ajar masaqashaan ma nagu soo celinaysaan oo dabeetana yidhi haa oo notaayada aad aragtaan nala saxeexay magacyadoodana halkaa ku qoran yihiin saxiixyadooda waa kuwa dhammaantood waad arkaysaan maxay haytay annagaana halkaa ku magacoona anagoo ilmo Sheekh Ali Saciida waxay ku qoran aan rabaa idin sheego hadalkoodii oo cad waxaa ku qoran annagoo ah guddida dib u dhiska masaajidka Sheekh Ali Saciid waxaanu aqbalnay inaannu si mutadawacnimo ah uga shaqayno dib u dhiska masaajidka Sheekh Ali Saciid shaqadeeduna waxay ka bilaabanaysaa dumista masaajidka hore qadiimka iyo dib u dhiska masaajidka cusub markaanu dhammayno waxaanu ku soo celinaynaa kuna wareejin doonaa masaajidka cusub ilmo Sheekh Ali Saciid oo kor ku xusan Saciid Sheekh Ali Saciid Maxamuud Sheekh Ali Saciid iyo Cabdiwahaab Sheekh Ali Saciid oo halkaa kor ku qoran sidaad aragtaan magacyadeedii saxiixii nimanka guddidana waa kuwaas dhammaantood halka kuwa saxiixan waxaa dhacay masaajidkii markuu dhammaaday in damac galay nimankii oo masaajidkii ay qoorta iskaga duubeen oo ay dooneen inay qabsadaan masaajidkii waxay nala galeen maxkamaddiina way naga soo xukuntay maanta nootaayadaa sharcigaa iyagoo diidan maanta waxaa noo soo baxay xukunkii maxay haytay naloo oggolaaday in masaajidkiina lagu soo wareejiyo 15 casho wataa waa maxkamadda gobolka Togdheer weeyaan waxa weeyaan waxay ka qaateen abiil bay ka qaateen waa laga diiday qaraar diidmo hor istaag bay sameeyeen waa laga diiday waxaa la yidhi ku wareejiyey 15 casho masaajidka oo ehelkii iyo Sheekh Ali Saciid masaajidka ugu wareejiyaa la yidhi saas markay ahayd maanta berito ayay rabaan masaajidka inay furaan iyadoo ku garab siinayo wasiirka diinta iyo awqaafta ninka la yidhaahdo Albani oo runtii ah nin dhinac jira iyo Somaliland wasaaradda diinta oo u dhaxaysa kooxeeda iyo firqooyinkeeda inuu dhex maaha madaxweyne Sabiix Cabdi waxaan halkan fariin uga dirayaa in uu ummadda wasiirkaagaasi isku horkeenayo oo isku dirayo oo dhinac raacay oo sida taariikhda ay tahay ku soo sheegayo qoraalladii qoran yihiin markhaatiyadii qoran yihiin maxkamaddii qoran tahay uu baal maray waxaan kale ku sheegayaa markuu annaga ilmo Sheekh Ali Saciid naga qaaday uu rabo inuu naga qaado nagama qaadi karo uu isku dayo naga qaado miftaaxii masaajidka oo dad kale ku wareejiyo wuxuu ka hor yimi ama sameeyay wax Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka diiday Nabi Maxamed calaysalaatu wasalaam kacbada markii Nabi Maxamed furay ee gaalada ka qabsaday Ali bin Abi Talib la socday miftaaxa waxa la weydiiyay dadkii markaa hayay kacbada oo gaala ah markii miftaaxa keenay ninkii waa diiday Ali bin Abi Talib uu tagay nabi wuxuu ku yiraahdaa dadka nabi hay ima diideen Ali bin Abi Talib tago xoog kaga soo furay kacbadu ninkii kor ka fuulay miftaaxii markuu ka soo qaaday nabiga calaysalaatu wasalaam wuxuu galay kacbada laba ragcadood buu ku tukaday laba ragcadood markuu ku tukaday uu soo baxay aayad quraan ku soo degtay ayaa ku soo degtay oo nabiga Ilaahay leeyahay in allaha ya'muruka an tu'addu al-amaanata ila ahliha Ilaahay wuxuu idin faraya inaad amaanada dadka Ilaahay u celisaan dadka Ilaahay leeyahay amaanadu celiya waa miftaaxa kacbada masaajidkaas waliba waa gaala waliba muslimiin dad gaala wali Ilaahay leeyahay miftaaxda ku celiya markii dambe aayad ku degtay baa nabigu u yeeray raaligelin buu bixiyay Ali bin Talib ninkii wuxuu ku yiri gacanta ku martay raaliga ahaw nabigu wuxuu raali hada wuu miftaaxi siiyay wuxuu ku yiri yaa bani Abi Talib khuduha خالدا تالدا ولا ينسع منكم إلا الظالم ربنا عبد الحو مفتاحين واكاس آيات بيقول شو دكتي إلهي بي أمري عيد آن محايتي مفتاح يتكقادي كرتا وان ظالم هاي نمجرتو وسيركو حنولين هاي ظالم نوات سماينسا مفتاح يقول أن تدنقى قادو دادك الله سيسو شرعي إسلامكم موافق سنة أحاديث موافق سنة قولك أصحابته موافق سنة وحكوسو قبقمين يا مدحويني ساعتك بريتو وحي بربنا كدعة wixii dhibaatay ka dhacda waxa ka masuula wasiirkaaga ka masuula
anugu dhibaato ma rabno mashaakilna ma rabno waxaan rabnaa masaajidkayga anigu aan ku dhashay ee intaa ku leeka ee anigu aan ku wareejiyey nimankaasaan ku dhisoo aan kula heshiiyey inay igu soo celiyaan maanta inay nagu haystaan ee dembiga khalad ka imanaya wasiirka waan u tegey wasiirka markaan u tegey xafiiskiisa ugu tegey guddidiin wuxuu igu yidhi reerkiina iyo wada kaalaya buu yidhi annagoo soo maqan oo markaa isle aad dee wada tagteen ayuu guddidan magacaabay guddidu magacaabayna waa guddidii nagula heshiisay in aan magaranaysaa masaajidka dhisaan ugu soo celiyaan warqadaas waa wasaaraddii ka horreysay isaga wasiirka horreeya weeyaan halkaa waxaa ku qoran guddidan waxa weeyaan guddida dhismaha keliya ku qoran halkaa waa wasaaradda awqaafta hargeysa keliya ku qoran waxaasoo sharcigu jebiyey wasiirku oo la hadalay wasiir waxa khalad nimanka naga daaban ku nini waxaad qorteen isku dhac buu keenaya isku dil buu keenaya naga daaban ku nini maanta wuxuu joogaa berberu jooga isaga wasiirka dastuurka wuxuu soo socdaa in masaajidka furaan laakiin dhibaata iyo horseedeen saas aan la socdo weeyaan